waad garan kartaa marka ahmiyadda iyo muhiimadda ay u leeyihiin xooluhu ummadda Soomaaliyeed hadda lama hubo laakiin markii hore waxa lagu oran jiray boqolkiiba 80 ummadda Soomaaliyeed waa reer baadiye loo oran jiray dawadani waa qaali qof kasta sidoo doon ha u arko haday tahay tan talaalka iyo haday daaweynta tahayba lacag far badan baa ku baxda iyo qarash runtii aan la koobi karin in sidii ay ahayd dhaqaatiirtu iyo farsamo yaqaanada marka ku foogan hawshan iyada inay si taxadar leh oo mas'uuliyad ku jirto inay u sameeyaan waa mid markii horena idin saareyd iminkana Ilaahay idin sii saaray mar walba idin saarnay inay habka ahayd uga soo baxdaan sidaad markii horeba uga soo bixi jirteenna way idin rajaynayaan waxaan qabaa geed kasta sidoo wasiirku sheegayay meel kasta oo xoolo ay joogaan markan in la tagi doono aw la tagi jiray waxa dareemeynaa tirada numberka xoolaha la doonayo in la daweeyo muddadaas waa 3 milyan oo neef taasoo aan ku kalsoonahay in dhaqaatiirta iyo shaqaalaha ka shaqeynaya hawshaas ay qaban doonaan ma doonayo maadaama dadka hadli doona ay farbadan yihiin intaas ma waxaan ku bixinayaa brief waxaana la daweynayaa dhammaan cudurrada ka jira deegaanka Puntland dhammaantood xil adag baa lagu jiraa xooluhu waa badan yihiin geediyo iyo kala socod baa jira xoolo soo hayaamay deegaano badan ka soo guuray waagi hore abaartii oo bariga roobka isugu tagay soo guuray baa jira oo hadda deegaamada ku socda nasiibku ciduu gaarsiin in la daweeyaa rabnaa oo iyagoo daweysanay meelahooda ku noqdaan ciddii hadda ka horgudhay nasiibkeeda qabtaan laakiin deegaanka Puntland oo dowladda Puntland gobolladeeda oo 9 gobol ah saaka kaambeynkaas uu wada gaari doona insha Allah bilaakiin daweynta xoolaha ahay waxaan rajaynaynaa in guri kasta iyo geed kasta xoolo joogaan lagu arki doono wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhaqaatiirteeda